السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أن جعل ملك استعدون كدافي سكت جوكتان وحيد لها إزي عافيمات كن ولاذا ساكي فيديو عصب وايه إن شاء الله. انت نجي كذا قلين كهر وحان ربعينا قصتو عصبر كاس إيوم حالي هذا شنبرو هالكاس كسو قصتي ما سيران سمي سنايا كدب نمسكوشان سو آذي لبستي قرا مرسنايا فروريها قليلي كبعدنا كرينا هوس كمرسنا إن شاء الله هدو إلهي إدمو markaan marsada insha Allah maaskaas yaroon samaystay wajiga heatka intaad dabka markaad galaysid ka hor waxaa fiican wajiga wax iska marsatid kadibna jikada aadaya haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa inaan wax yar ilmaha aan u sameeyo haduu Ilaahay idmo marka ma sha Allah tabaarak jikada isla aadayna meeshan waxa ii karaayo qudaartaan dabka ii saaran suuga ii karayso aan rabaa inaan makarooni yar caruurta ugu sameeyo haduu Ilaahay idmo ما شاء الله waxuu ka kooban tahay hilib iyo baradho iyo maxaa la yiraahdaa carrot maxaa la yiraahdaa green beans iyo ado qudaar yar oo kale to isku dardar waaye tomato man dusha kaga daraya tomatomka oo bakeedyada kadibna ma sha Allah suuga sidii loo karinayo carafteeda dhana u soo dhameystiraya maraq digaageeda easy insha Allah maadaama maxaa la yiraahdaa guriyaha la iska fadhiyo waxaan ku dhahay 3 waqti in la kariyo noqotay marka insha Allah makarooni yar u boobsiinaya oo maxaa la yiraahdaa aan waqti badan aan qaadanaynin haduu Ilaahay idmo ma sha Allah walaalahay waxaan idin leeyahay soo dhawaada ma sha Allah walaalaha cusub subscribe ka cusub waxaan idin leeyahay qalbi furan niyad saafiya kulligiin ku soo dhawaada insha Allah walaalahay hore noola jooga nala sii jooga makaroonadana u karinaya aad u yar yar tahay caruurtu u fiican tahay makarooni yar yariis waaye ma sha Allah markaan isla socono walaalahay aan jeclahay biya ii karkaraayo biyahaas waxaan rabaa inaan ku dhaqo haduu Ilaahay idmo istraashooyin aan rabaa inaan ku guro istraashooyinka labadii bariba maalina iska dhaqaa meeshaas biyahaas karkarayaan ku shubayaa istraashooyinkan ku soo guraya kadibna waxaan ku shubayaa shaambada oo dharka lagu dhaqdo iyo qal aan ku shubayaa kadibna waan dhigi markaan dhigo adiga markay biyaha ay qaboobaan gacanta ula tagaya waan jajabinaa kadibna insha Allah qasaaladan geyn doona haduu Ilaahay idmo saana ugu soo guraya labadii bariba ma sha Allah maalin marka iska dhaqdid ma sha Allah istraashooyin badan waa haysanaysaa oo aad iyo aad u badan mar walba marka soo gad hada kuwi hore aad soo gad aad si tuurtid inay xoog kaaga jilcaan ma ahane ma sha Allah ayaga ku cusub hada wasaq u tuurtid maxaa la yiraahdaa istraashooyinku kugu yaraana inay ku badan yihiin fiican saana waxaan dhahay biyaha karkaraya ugu shubaya saliida iyo waxa dhan way ka dagayaan kadibna markay qaboobaan gacanta ula tagaa waan jajabina markay qaboobaan insha Allah meeshaas iga kala go'ay gacanta ula tagaya 2 saac ilaa 1 saac meelahaas insha Allah intay ku qaboobayaan aan meel ku dhigaya kadibna ayadoo saliidi dhan iyo wasaqdi dhan ay ka dhacday insha Allah gacantan ku jajabina kadibna insha Allah qasaaladan u diraya haduu Ilaahay idmo ma sha Allah waxay ku noqonayaan istraashooyin badan oo qurux badan oo ma sha Allah maxaa la yiraahdaa aad u fara badan oo sababtoo ah mararka qaar waxaa jirto week aad dhan aadan maxaa la yiraahdaa aadan haleelaynin istraashooyin iska dhaqid laakiin hadii ay moor ay ku badan istraashooyinka way ku caawinayaan mar walba kuwa nadiifka kuwa la soo baxaysa kadibna waa arursanaysa marka insha Allah aan saasan sameeyaa haduu Ilaahay idmo marka insha Allah isla socono walaalahay
inaan jikada insha Allah iska nadiifiyo hadduu ilaahay idmo meeshii aan wax ku kariyay iyo meesha alaabta lagu dhaqaayay kadibna baking soda ku shubay iyo waxaan ku shubayaa shaambada oo alaabta lagu dhaqo iyo maxaa la yiraahdaa qal maasha Allah waan ku xoqayaa siinkaaga maasha Allah weligiis ma isbedelayo maasha Allah aad iyo aad ayuu wuxuu u noqonayaa wuxuu asaga dhan u sameynayaa shiny quruxa iska dhex arkaysid muraayad uu noqonayaa marka insha Allah burushkaas insha Allah aan ku xoqayaa meesha oo biyaha ay ka baxaan iyo maxaa la yiraahdaa jirjirada dhan kadibna insha Allah burusha ula tagaya asaga dhan wuxuu noqonayaa clean biyo qandac marka ku dhaqid inta iskugu dartid maasha Allah wuxuu ahaanayaa asaga dhan dhaalo weligiis miska ka bedelayo marka insha Allah jikadaas iska kala toosinaya hadduu ilaahay idmo qalka waxa waay qalka oo maxaa la yiraahdaa salaadkii waxaas lagu dhaqo maasha Allah aad iyo aad ayuu waxa weeye guriga uu nadiif uga dhigaa meelaha aad wax aad ku qabsanaysid oo dhan haddii aad ku shubatid meelaha baasho sprayga aad ku buufisid maasha Allah baashaas waxa waa iyadana wasaqda marka dhamaato baalkaas oo brushka iyo lagu ridaayo siliga alaabta lagu dhaqo iyo shaambada iyo waxaas la saarto asaga laftirkiisa haddii aan mar walba aan maxaa la yiraahdaa la ilaalinin wuxuu sameynayaa inuu wasaq u yeesho gudihiisa maxaa la yiraahdaa bacteria oo kale ay ka dilaacdo marka maasha Allah haddana waxaa la dhahaa la is ilaaliyo intana waxaan rabaa insha Allah waxaan ku shubayaa lavender oil jikadii aan nadiifiyay waxaan rabaa insha Allah wasaqda dhan inaan maxaa la yiraahdaa urka iyo shirshirka waxaas waan ku dhex shidayaa inay ka saarto hadduu ilaahay idmo jikada saana nadiif uga dhigay maasha Allah dhulka waa dhaqay meesha kuukarka meesha maxaa la yiraahdaa hawsha lagu qabsado wixii dhan waan soo tirtiray nadiifan ka dhigay maasha Allah marka walaalaha aan jeclahay insha Allah aan isla socono hadduu ilaahay idmo istraashooyinkii way qaboobeen maasha Allah gacantaan ula tagay gacantaasaan ku jijabinayaa hal gacan ay ku dhaqaysaa umudaha haysdhihina gacan kaamiradan ku haystaa meesha oo waxaan ku dhaqayaa maxaa la yiraahdaa baadka oo lagu qubeysto aan dhex gashtay halkaasaan ilmaha biyaha karkarkooda inay isku gidiyaan aan ka cabsaday meeshaas maxaa la yiraahdaa aan dhahay safe waaye marka gacanna kaamiradan ku haystaa qof ii qabanaya ma jirto marka gacanna waa insha Allah waan ku jijabinayaa kadibna maxaa la yiraahdaa si fiican markaan maxaa la yiraahdaa maasha Allah si fiican insha Allah aan gacanta ugu jijabinay kadibna insha Allah waxaan sameynayaa hadii Ilaahay raado ay ka dhan nadiif ah horta si fiican u noqdeen kadibna marka qasaarada maasha Allah aad ku ridid oo maxaa shaambadooda iyo carfisadooda aad ku dartid maasha Allah waan soo maroojiyay waa kana qasaaradan ku shubayaa maasha Allah laba bari bas aan isticmaalay kuwaas kadibna insha Allah waxaan sameynayaa markay qalalaan hadii Ilaahay idmo waan la laabi kuwa kale ta insha Allah la soo bixi marka maasha Allah waxay iga tahay dhiirigelin qof kasta ma garan waayin marka ha isdhihina insha Allah qof kasta shaqo uu yaqaana maasha Allah qof kasta shaqo uu yaqaana waa sax
laakiin waxaa waaye dhiirigelin insha allah. muhiimadayda waxay tahay in la isdhiirigeliyo walaasha haddii ay caajisan tahay ama maasha allah walaasha haddii ay caajisan tahay dhiirigelin ha u noqoto way muhiimadayda. marka walaalaha aan jeclahay waxaan idin leeyahay insha allah support gareynta waa dhankiina, dhiirigelinta waa dhankiina insha allah. commentiyada quruxda badan ee soo dirtiin aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin. maasha allah gabdho badan oo maxaa la yiraahdaa isoo weydiiyey maxaa la yiraahdaa su'aalo badan oona kasoo jawaabin insha allah iyo cudur daara. maasha allah adduunyada busy iska jira, ilmihii dhan guriga wada fadhiyaan. marka walaalaha aan jeclahay insha allah waan kasoo jawaabi doonaa ayagana maxaa la yiraahdaa commentiyadaas insha allah. waxaan idin leeyahay meel walba joogtiin ilaahay ha iga xafido. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.